kahadlo qodobka koowaad aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeyaan wadogtiino odayaal iyo madax dhaqameedyo iyo waxgarad ka yimid gobolka Awdal ayaa waxa joogay muddo week iyo dheeraad ah magaalada Hargeysa qoraal aad u qoto dheer ay soo bandhigeen oo cabashooyin ah iyagoo ka cabashanaya saama qaybsiga Somaliland runtii waxaan xukuumadda ku boorinayaa in aanay dhayalsan arrinkaasi ay odayaasha Awdal ka hadleen qoraal bay ku soo gudbiyeen meesha waxa yaalay numbers bay yaalay sida ay u janjeedho saama qaybsiga Somaliland runtii aan arrinka la dheersan waa arrin muhiim weeyaan waan ku taageersanahay odayaasha Awdal ka soo jeeda in ay cabashadooda soo muujiyaan si sharaf leh oo wanaag leh oo xushmad leh u soo muujiyaan waxaan leeyahay Somaliland madaxweynuhu iyo xukuumadduba waa in arrinkan aan dheersan halkeeduna ma ahan guddi loo saaro waa in madaxweynuhu gacanta ku qaabsadaa oo yiraahdo aniga ayaa arrinkan ka dhabaynaya arrinkan ana ka shaqeynaya arrinkan waa inuu habeen iyo maalin ka shaqeeya waa ogtihiin shaqaaqa badan bay naga furan dhinaca bariga Somaliland oo arrinkaas cabashadeedu uu noo keenay waa muhiim waana ku boorinaya marka ay odayaasha Awdal waan taageersanahay ayaan leeyahay arrinka labaad ee anagu iyo xisbi ahaanba xisbiga horena waa uga hadalay oo gudoomiyaha xisbiga ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka saddexaad Ali Gure baa ka hadlay musharax ku-xigeenka ayaa ka hadlay Cabdirashiid Xasan Mataan maanta aniga ay ka hadlay oo taageersan arrinkaas arrinka labaad ee aan jecelahay waxa weeyaan shalay toole waxa shir saxaafadeed ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo ka hadlay arrimahan diiwaangelinta runtii aad baan ula yaabay hadallada ka soo yeeray maxay ahaydey wasiirka oo aad moodad qaar xaqiiqad aad iyo aad uga fog in ahaayeen ummadda Somaliland oo dad wax kala garanaya oo aan maartay shir saxaafadeed lagu waali karin wadogtihiino meel aan ku niri ama macaariftu uu ku yiri way diidan diiwaangelinta madaniga ma jirto waanu taageersanahay laakiin la socda diiwaangelinta madaniga sida loo wada ayaan diidanahay ma diidanin iyada sida loo wado iyo ajandaha sida la doonayo in lagu xaqoolo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee diidanahay wadogtihiino diiwaangelinta madaniga waxay ahayd in la diiwaangeliyo dadka u dhashay reer Somaliland qoyska oo dhan waxay qaataa waqti fara badan waqti badan baa la geliyaa halkii ay ka ahayd arrinka uu sidaa ka ahaa ayaa diiwaangelintii madaniga hadgebigeedu waa la bedelay imika waxa la yiri diiwaangelinta madaniga waxay noqonaysaa wixii 16 ka yar ayuu baaba kaar la siinaya taasi diiwaangelin madaniga ma waa kaar baa la siinaya kaarkaana waxa la doonayaa in lagu shaqo qodo doorashada soo socota oo codbixiyayaasha kaarka cidda siino baadana galaysa diiwaangelinta adeeynta yeelmayna taas ma ogolaanayno diiwaangelinta codbixiyayaasha waxa ka shaqeeya commissionka ayaa ka shaqeeya oo dhaxdhaxaad oo ah xisbiyada qaranka ee dadka tartamaya adigu dad aad noo soo walwalaaqatay iyo idyo adigu soo samaysatay tartan lagu la gelay misid mana ogolaanayno doorashadaas waxaan idin sheegaynaa baasaboorro ayuu dadka u ballan qaaday wasiirka dakhliga oo uu ila xajka ayuu ku tagayaa hadaba mudane wasiir waxaan ku leeyahay dadku waxay u baahan yihiin baasaboorrada adigu ballan qaaday xilliga xajka oo imika taagan waxbana ma u soo dheelifar karay waxbana uma adkeyn imika ID baad ka hadlaysaa dadku ID uma baahne baasaboorro ay u baahan yihiin ay dibadda ku tagaan oo dhibaatooyinkooda iyo hadii caafimaad ay noqoto iyo hadii wax kale ay noqoto ay ku gala ay u baahan yihiin waxaan leeyahay tii aad ka sheegtay mudane wasiir aad ka hadlaysay deeq bixiyayaasha atri lacag looma hayo diiwaangelinta codbixiyayaasha taas runtii xaqiiqda way ka fogtahay codbixiyayaasha waa ku maalintii dhaweydii noo yimid waynagi la kulanay waanagi xisbiyadu ay la wada kulmeen awal bay iyaga lacagta inaga bixin jiray meel ay ku yiraahdeen lacag dadku uma hayno adeer ma jirto darago inama hayna TV-da la soo istaagan wax xaqiiqda ka fog maaha deeq bixiyayaasha waa ku waxaan idin haynaa lacagta waan idin haynaa waa ku ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka xataa waa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga cudwaakii hore uga hadlay waxa weeyaan arrinkan waa arrin la isla wada gartay adiga laftirkaagu jazaa'atu wasiir mar horeeto ayaad saxeexday waxaan aynu ku galnay wixii aad adigu ballan qaaday ee aad saxeexday 3 bilood ka hor ayaad imika dib u bedelaysa oo jaawareynaysa waxa weeyaan deeq bixiyaashu iyaga weligood lacagta laga bixin jiray diiwaangelinta
وديار بين دويهين واحد باتانا ما جرتو لكن waxaan ku sheegayaa doorashada soo socota marna noqon mayso in dib loogu dhigo sababtoo oo ah waxa doonaysa mashruucan diiwaangelinta madaniga ee aad badashay maaha diiwaangelinta madaniga ee aad badashay inuu noqdo mashruuc lagu jaawareerinayo diiwaangelintan codbixiyayaasha fadlan yaan saay naga noqonin khalkhalayna gelinna waxa aan loo habboonayn ayaynan ka hadlin waad ogtihiin 4 sanadood iyo badh baa fadhiday madaxa xukuumadda kulmiyadiin 4 sanadood iyo badhkaasi de wixii aad ka shaqeyn weydeen waxaad markii ugu dambeysay ee diiwaangelinta codbixiyaasha loo bixinayo aad u tiraadaan waan wadaynaa anigu waxaan u aragnaa tactics ama xeelad la doonayo in doorashada dib loogu dhigo taasina ummadda ka yeelmayso ummaddu way daawanaysaa way idin samraysaa haw qaadanina inaad fulgareyn kartaan ama aad khiyaameyn kartaan yaana idinku noqonin mar quraata ummadda idinku kicin fadlan dalkana ay naga khalkhalniga doorashadii iyo hanaankii dimuqraadiyadeed ee laynooga bartay ee caalamku inooga bartay ee dadbixiyaasha lacagta nagu siinayeen yaynaan jahwareerin tan madaniga haddaad doonaysaan anigu waxaan ku talin lahaa in sideedii loo sameeyo marka hore loo sameeyo maaha wax imaka degdeg ah laakiin inaad labada diiwaangelinood aad isku dhaftaan tiina wata laakiin diiwaangelinta codbixiyaasha u ogolaada inay sideeda u socoto oo commissionku inoo wado labada xeer ee baarlamaanka qabiil qoraalka ana waa inay sidoodii kala ahaadaan sababta xeerka diiwaangelintu waa mid hore u jiray lahaa oo aynu qabiiltirayno laakiin xeerka madanigu waa mid cusub daadee wax hore u jiray iyo wax cusub madaxa la isu gelin kara maayo waxaan jecelahay qodobka saddexaad aan kusoo gabagabeynaya aan ka hadlaya waxa weeyaan waa arrinkii maalin dhaweyd waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay tiri maadana shirkadaha ka qora shidaalka Soomaaliland waan dacweynaa ama waan dhibaataynaa fadlan waxa la reer Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya dhibaatooyin idinku filan waa haysataa magaalada Muqdisho inaan nabadaysaan ayaa idin taala ee ina Soomaaliland iyo macdanteeda iyo dadkeeda ina ka shaqeysaan idin ma taalo dadkuna ma wanaagsana in la isjiijito la isku guftiso khayr baan idin rajeynaa Muqdisho nabadeeya umadiina u shaqeeya laamiyo sameeya waxa uu sameeyay anigu shidaalka iyaga iyo Soomaaliland iyo hawleeyda anaga wadanayna arrinkaas arrin ka soconayana maaha dad khayr noo idin rajeynaa wassalaamu calaykum warahmatullahi shirkadda waxa la rahmeeyay DNO waxa kamid tahay shirkadii Soomaaliland la galay sahaminta heshiiska shidaalka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri si toosan dacwad uga furnaa iyaga arinta xisbi ahaan sababtoo ay xukuumadda Soomaaliland ilaa hadda si waafiyo uga mahdan marka laga yimaado wasaaradda macalinta iyo tamarta war saxaafadeed kooban oo arintaasi jawaab noqonaya ka saartay xisbi ahaan sababtoo anagu waxaan u aragnaa in marnaba aan gurgurta gali karin madaxweynaha Soomaaliya uu riyoonaya rag badanna horeeto oo igu hadleen Soomaaliland kama taliyo arrinkeeda kama hadli karo dalkii Soomaaliya ayaa laftirkiisa gabigiisa ka wada tan iyo koonfurti Muqdisho aanu ka wada talin marka waxa uu wanaagsan in Muqdisho iyo arrinkeeda galo shirkadana waxa la leeyahay wuxuu ku haystaa ma jirto jurisdiction bay leedahay Soomaaliland waa looga Soomaaliland sida ay sida ku timid waa looga laba dal oo isku darsaday labada ay ahaayeen 1960kii mid walba xorriyadiisa si gaar ah ayuu helay dadka reer Soomaaliland oo ka go'aantay qarannimada Soomaaliland madaxweynaha oo xamar fadhiyo oo xamar ma nabadeyn kara waayay baal xaftidiisa waxa